inkastoo waqti adag lagu jiro oo cadowgii iyo bulshadii isku ekaadeen laakiin waxaan rajaynayaa inaad awoodooda yeelataan inaad kala saari kartaan bulshada iyo cadowga marka aad cadowga qabanaysaanna aad u yaraysaan khasaaraha soo gaaraya bulshada qaybaheeda kala duwan maxaa yeelay cadowga maanta aan la dagaalamayno waa cadow ku dhumaalaysanaya magaalooyinka iyo dadka dhexdiisa ururada maanta kala jebinaya ee badar iyo uxud waxaa loogu magac daray waad garanaysaan waa ururadii diinta islaamka ee xaniifka ee maanta aan haysanno soo badbaadiyey u soo dhabar adeegay cadowga ka adkaaday maanta nimcada iyo naxariista sida lagu tilmaamay diinta islaamka aan haysanno saldhigga u ahaa waxaan rajaynayaa ciidamada maanta halka ka qalin jebiyey inay wixii ay barteen bulshada ay iyo meelaha iyo goobaha ay ka shaqayn doonaan dhexdooda iyo dadka kaleetaba in laga dhex arko ayaan aad u rajaynaya waxaan ku dardaarmayaa cadow kasta oo puntland leedahay ama kuwa ku dhex jira ee argagixisada ah ama kuwa dhulka puntland ay leedahay haysta inay u diyaar garoobaan inay puntland cadowgeeda iska dhicinayso diyaar u tahay inay awooddeeda dastuuriga ah ay ku dhaqanto soo ceshato dhulka ka maqan cirib tarto argagixisada diyaarna ay u tahay in cid kasta oo hadda xadgudub ku haysa in ay wada hadal iyo nabad hadday ku helayso ay la gasho hadday ku weydana awood ay ku soo ceshanayso waxaan ugu baaqaynaa somalilan si sharaf leh inay dhulka iyo dadka puntland ay joogto uga baxdo dhiig walaal ma doonayno darisnimaan rabnaa wanaag iyo horumar baan rabnaa waxaanan marna ka yeelayn oo dastuurka federaalkuna qodobkiisa 142 uu farayaa in dowladda puntland inta dastuurka federaalka ee qabyada ah loo qaadayo afti kama dambaysa inay puntland ku dhaqmayso dastuurkeeda waxaa sidoo kale dastuurka puntland uu farayaa in xuduudaheedu ay cayiman yihiin shantii gobol iyo degmadii puntland lagu aasaasay dadkii degganaa ay aasaasteen waa waajib dusha ka saaran puntland cid ka gorgortami karta oo kale oo dastuur iyo sharci uu siinayo ma jiro waxaan caalamka u sheegaynaa inay dastuurka soomaaliyeed akhriyaan dastuurka soomaaliyeed inay akhriyaan marka ay rabaan inay dadka soomaaliyeed ay wax taraan dastuurka soomaaliyeed wuxuu si qeexan u caddaynayaa dastuurka puntlandna uu qeexayaa dhulka puntland waa cadya dowladda puntlandna waa mas-uulka ah cid kale oo gorgortan iyo wada hadal ka geli kartaa ma jirto arrintaas marar badanna waa sheegnay waana ku celcelinaynaa waxaan kaloo u sheegaynaa ururada argagixisada afraadda ka tirsan ee buuraha calmadow iyo calmiska aad ku dhumaalaysanayso wakhtigiinni waa gabaabsi waxaan u rajaynaynaa dad degaanadan ka tirsan hadday ka mid yihiin inay dowladda puntland isku soo dhiibaan dad degaano kale ka yimid oo aan nabadgelyo u imaan dalkaanna ay isaga baxaan degaanada waxaan ballan qaadaynaa in ciddii diidda baaqeennaas wax arxana aan loo gelin ma qarsanayno waxaan farayaa ciidamada puntland meel kasta ay joogaan wixii bulshadan cadow ku ah goobtaa ku aragtaan ku toogta maxkamadaha dib lala sugi maayo maxaa yeelay cadowga hadda jira wejiyo badan buu yeeshay waxaan rajaynayaa cadowgaas in lagu dhiirado
cid kasta oo faldambiyeed ku jirta oo hubaysan oo wax fulinaysa goobteeda ha lagu toogto ciddii la tuumo waxaan rajaynaynaa in laamaha ammaanku ay si wanaagsan u baaraan laamaha cadaaladuna ay si wanaagsan oo cadaalad ku jirto hawshooda u fusho waxaan ka digayaa ciidamada kala duwan inay gaboodfal ku sameeyaan cid aan dembi lahayn waxaan ka digayaa cid aanan tuhun cad lagu hayn in xabsiyada puntland la geliyo waxaan ka digayaa dad aan dembi lahayn in jirdil lagu sameeyo waxaan rabnaa inaan ilaalino xuquuqda dadka laakiin cadow naxariis nagama dhexayso cidday ku caddahay waxaa la rabaa si cad in tallaabo adag loogu qaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii tababarkan muddada dheer ka soo shaqaynaysay duruufaha kala duwan ku soo shaqaysay isu soo sabartay waxaan rajaynayaa wax kasta oo ka dhacay intii tababarka socday ama guddigii dibahabaynta samaynayay qabsaday ama saraakiishii ciidamada qabsaday ama saraakiishii dugsiyada maamulaysay ama kuwii la tababarayay intaba in dulqaadkaasi uu maanta yahay miro dhal ciidanka waxyaabo dadka shacabka ay dhib u yaqaanaan iyaga waa u dheef cadaadinta iyo tababaridda iyo celcelinta iyo weliba ganaaxidda ciidan intaasba waa dheef idinka ini ah oo ini toosinaysa maxaa yeelay dadkan haddaysan disibilin adag yeelan oo ismaamulin naftooda hala ku jirta haddii goobta cadowga markuu joogo sidaad maanta isu maamulinaysaan aad u kala amar qaadan weysaan dee waad ogtihiin khasaaraha idin soo gaaraya haddii idinka khasaare idin soo gaarana bulshadoo dhan buu soo gaaraya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay gobollada khaasatan ay ku yaallaan dugsiyada tababarka ama degmooyinka ay ku yaallaan guddoomiyaashooda degmo iyo gobol sida ay ula shaqeeyeen iyo bulshada deegaanadaas ku dhaqan sida ay ugu sahleen ciidamadaas kala duwan inay hawshooda u gutaan waxaa inoo dardaarana oo inoo ballan ah inaan ummaddeenna difaacno sharaftooda maalkooda cirdigooda waa inaan puntland mar dambe aysan ka dhicin in gabar reer puntland lagu kuso aad bay muhiim u tahay markay ciidamadu xoogaystaan awooddooda xoogaysato cadowgeennu kaan ka hadlayna waa kan dibadda midka gudaha ee tuugga iyo warxamatashiilka iyo fidmo walaha midka doonaya inuu bulshadaan horumarkeeda hor istaago idinkaa iyadana u xil saaran walow ciidamada booliiska inaga sii fara dhuudhuuban yihiin laakiin ciidamada daraawiishtu waxaa la rabaa waa qayb ka mid a ciidanka guud ee dalku leeyahay hoostaga taliska guud ee ciidamada puntland oo dhan oo midka ah waxaa la rabaa wada shaqayn joogto ah siday hadda u wada shaqaynayaan waxaad ka ogtihiin ciidamadii daraawiishta hadda waxay ka howlgelayaan magaalooyinkii waxay joogaan oobiyadii waxay ka howlgelayaan magaalada garoowe oo ciidamadoodii booliiska tababar loo soo qaaday waxay ka howlgelayaan magaalada gaalkacyo aad la socotaan oo amnigeed wax badan ay ka beddeleen dufcadaha aan la sheegin weeye dugsiga kontoni afraad waxaan filayaa waa dufcadii saddexaad hadda maxaa yeele laba dufcoo ka horreeyo hadda shaqo ku jira ayaa jiray dufcadii saddexaad weeye kontoni afraad baran waa dufcadii koowaad halkana waa dufcadii labaad waxaan rajaynayaa mar dhowna inay abqaale iyo boocam ay balaamin doonaan waxaas aan u samaynayno waxa waaye waajibaadka dastuuriga inaan gudanno ummaddeenna inaan u shaqayno cid aan ummaddan cadow ku ahayn annagu cadow kuma nihin cidna duullaan kuma nihin darisnimo wanaag iyo wada hadal iyo wanaag ayaan ummadda soomaaliyeed la doonaynaa iyo dowlad soomaaliyeed oo isku xiran oo mid ah oo meel u wada jeedda oo cadowga guud ee soomaaliya iska dhicisa taas waxaa weeye waa meeshaan u soconnay waa meeshaan naf iyo maal ku soo weynnay waa meeshaan weli u taagannahay oo sii wadi doonna haddii ilaahay idinka dhigo waxaan inoo wada rajaynayaa guul horumar iyo ku sugnaan dariiqaas ku soconno oo marna uusan shaki naga gelin cid kasta oo rabta inay tashuush ku furto iyadu unbaa ku dhimanaysa haddaan ahay
mas-uulka ugu sarreeya dowladda puntland isbeddelka dalkan aan ku wadno ee maamul ee ciidan ee maaliyadeed ee shaqaale ee horumar marna kama laaban doono cid kastoo isku dayda taasaan ii sheegaya waxaan rajaynayaa واجب دستوري ودستور كنا فريو وواجب ديني ودين نفريسو وواجب إنساني وواجب أمضات يقفوا بالمسؤولية سيدي تاعي وجود يسوون قفوا كحميرين قفنا عن سيجارة ويجين وحال ربا واجب إلهي ونفري دستور ونفري ummadeenna wanaagsan ay nagu aamintay inaan fulino oo inaan ummadeenna u shaqeyno anigoo madaxweynaha inta iga hoosaysa waxaan khaadimiin iyo shaqaalo u nahay bulshada badan ee 4 milyan ee reer puntland waxaan rabnaa inaan u adeegno waxaan rabnaa inaan noloshooda kor qaadno waxaan rabnaa amnigooda inaan sugno waxaan rabnaa inaan cadaalad samayno cidda ugu horeysa hawsha gudanaysa waa ciidanka haddaan ciidan ku hubaysan akhlaaq ku hubaysan aqoon ku hubaysan sharci ku hubaysan kala dambayn iyo uusan jirin ummadda uma adeegi karto marka waxaan rajaynayaa in aan noqonno dad intaa ku sufooba aqoonta la siinaya qaata kala dambayn yeesha dulqaad u yeesha naxariis u yeesha ummaddooda waajibaadkooda ilaahay uga baqa oo si nadiifa u guta waxaan aad ugu kalsoonahay intii yarayd oo hadda isbeddelku socday waxaa muuqata isbeddel waxaa soo baxday saraakiil firfircoon waxaa soo baxday oo la kala bartay ciidamada kartidooda waxaa loo kala doortay haddo meesha ku kala fiican yihiin maanta waad arkayseenoo qaar baa kumaandoos ahaa qaar baa cayaaraha kala duwan ee maaragtay difaaca nafsiga ku fiicnaa qaar baa weerarka iyo goobta ku fiicnaa qolo walba oo ciidan tababarka ay soo bandhigtay meel baa looga baahan yahay waxaan rajaynayaa ciidamadaas kala duwan tababaradaas kala duwan isbarashadaas kala duwan ee qof walba meesha uu ku fiican yahay in loo horumariyo lagu xasdin la soo saaro qofka hogaamiyaha la tixgeliyo qofka kartida leh kor loo qaado moralkooda dadka hoggaanka ciidanka ku jira waxaasoo dhan waxay qayb ka noqon doontaa isbeddelka aan wadno waxaan aad ugu rajo weynahay isbeddelkan inuu guulaysto idinkana aad guulaysataan puntlandna ay guulaysato soomaaliyana ay guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu